Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin meel walba ood joogtaan ama aad iga daawanaysid hadda. Haddii aadan channelkan horey subscribe u saarin ama ay tahay markani markii kuugu horreysay ee channelkan soo booqato, fadlan subscribe saar oo ka mid noqo qoys ama dad aad kuu jecel. Kusoo dhawow gacmo furan iyo caleemo qoyan. Waa qalalan yihiin. Like dheh oo la wadaag asxaabtaada si muuqaalkani uu u gaadho dad aad u badan. Mahadsanid. Dhacdadan waxay dhacday bishii 2 2020 waxayna ka dhacday magaalo la yiraahdo Anbar oo ku taala dalka Ciraaq. Dhacdadan waxay qabsatay qoys ka kooban 5 qof. Aabaha oo la yiraahdo Cabdul Jabbaar Xamiid, 2 dumar oo isagu qabo iyo 2 ciyaal oo isagu dhalay. Gabar 19 jir iyo wiil 16 jir. Cabdul Jabbaar wuxuu ahaa qof reerkiisa si qurux badan u dhaqda, awlaadiisana si wanaagsan u tarbiyeysta. Inta marka laga tago Cabdul Jabbaar wuxuu ahaa nin dadka aadamaha oo dhani ay jecel yihiin, ahna qof diineed Rabbigii aad ugu xidhan. Waxaa dhacday subaxyada kamida salaada subax marka la gaaray ama fajriga wuxuu aaday masaajidka sidoo salaada fajrka u soo tukado. Markuu soo tukaday kadib wuxuu ku soo noqday gurigiisa markuu yimidna wuxuu bilaabay inuu hurdada dib ugu noqdo maadaama waqti hore ahayd. Reerkiisana intay tukadeen bay iyana hurdada dib ugu noqdeen. Wuu seexday 15 daqiiqo markay ka soo wareegatay intuu guriga joogay 15 daqiiqo ama rubuc saac markay ka soo wareegatay. Ba hal mar reerku waxay ku soo baraarugeen dhawaqa xabad dhacday. Way yaabeen. Markiiba waxay u soo kala carareen dhanka xabadu ka dhacday ee dhawaaqu ka jiray oo ahayd qolka Cabdul Jabbaar aabaha reerka. Markii ay nalka shideen waxay arkeen Cabdul Jabbaar oo xabadu ku dhacday markiiba nafta hore uga dhacday oo nafta dhulba la gaadhin iyo sariirtii uu ku jiifay oo dhiigu sida u dul sabaynayo. Fajac baa ku dhacay iyo ama kaag iyo afkala qaad. Markiiba reerkii waxay bilaabeen in askarta wacaan, askartii baa daqiiqada kadib soo gaadhay. Waxay bilaabeen askartiina guriga inay isku hareereeyaan guriga oo dhan. Waxay baaritaan ku sameeyeen gurigii ciidan falkan geysatay bay raadiyeen. Daaqad jaban ma laha, albaab jaban ma laha, meel duleesho ma laha, xabadu banaanka kama soo dhicin gudahay ka dhacday. Reerkuna way wada jiifeen. Cabdul Jabbaar bay qaateen si ay u geeyaan meesha lagu baadho meydka oo baaritaan loo sameeyo. Reerkii guriga joogayna maadaama ay uga shakiyeen wax cadayn ah oo guriga ka heleen mal intay guriga baadhayeen. Xabaduna banaanka kama soo dhicin. Maadaama ay guriga dhexdiisa ka dhacday waxay qaadeen 2 xaas uu qabay iyo 2 ciyaalkeed 4 qof waxayna u taxaabeen xabsiga say baaritaan ugu sameeyaan oo u wareystaan wixii meesha ka dhacay. Waxaa loo hormariyay wareysiga xaaskiisii oo lagu yiri xaaska weyn. Waxaa lagu yiri ninkaaga adaa dishay waxaadna u dishay naag labaad buu kula guursaday. Marka masayraad ka masayrtay baad ninkaaga u dishay. Waxay tiri ninkayga ma dilin wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan aniga iyo ciyaalkayga bana jecel reerkana si wanaagsan u dhaqda reerkiisa. Wuxuuna ahaa isha dhaqaale ee kaliya ee reerkanaga soo gasha. Ku darsada oo 4 qofi reerkan odaygan iyo 2diisa xaaska ah hal meel bay ku wada noolayeen, hal guri bay ku wada noolayeen, 2diisa dumarka iyo 2diisa ciyaalka ah. Marka waxay tiri anigu ninkayga ma dilin, mana dhici karto inaan dilaba. Waxaa loo yeeray xaaskii labaad intii in la eg baa la weydiiyay waxay tiri anna ninkayga ma dilin, mustaxiil ninkayga inaan dilo. Waxaa loo yeeray wiilkii yaraa maadaama 2 ciyaalkeed bas soo hadhay. Markii hore waxaa looga shakisnaa 2 dumarka ama sayr dartii inay u dileen. 2 ciyaalkeed baa soo hadhay marka waxay isdhaheen gabadhu aabaheed ma dili karto. Maxaa yeelay gabadhu waa qofka ugu dhow aabaha. Aabuhu wuxuu wiilashiisa in badan ka jecel yahay uu koolkooliyaa oo aad isugu dhow yihiin gabadhiisa. Marka waxay dhaheen gabadhu waxba ma dili karto waxayna u yeedheen wiilka dhalinyarada ahaa. Wiilkii markay u yeedheen waxay ku dhaheen aabaha adiga dishay ee sheeg sababtaad ku dishay. Wuxuu yiri anigu aabahay ma dilin. Ka yarku marka wuxuu u hadlayay si kalsooni ku dheehan tahay markuu u sheegay wareysanayeen. Qofka dambiilaha ana waxa la yiraahdaa dadkana qaba dhulka la gargariira. Marka qofku markuu wax dilo ama wax sameeyo haduusan cadayn ka tagin marka la wareysanayo ama wuxuun cabsi baa ku jirta oo hadalkiisa ama wuu ilaalinayaa wuxuu isleeyahay yuusan hadal ka tagin. Ka yar marka wuxuu u hadlay si kalsooni ku dheehan tahay. Wuxuu yiri anigu aabahay ma dilin waxaan ku dilana dhexdanada maba uusan oolin. Gabadhii baa soo hadhay gabadhii baa la wareystay waxay tiri inta in la eg anigu aabahay ma dilin mana dhici kartaba aabahay inaan dilo.
dadka dambi baarayaasha ama askarta ku takhasustay baaritaanada dilka iyo dhakhaatiirta la shaqaysaba waxay sheegi karayaan xabadda masaafada ay kasoo dhacday xabadduna waxay ku dhacday Cabdiljabaar kaga dhacday masaafo aad u dhow ama fogaan aad u dhow ma aha mid guriga ka baxsan ama meel fog laga soo toogtay ma aha waa mid aad ugu dhow masaafo aad ugu dhow baa laga toogtay ama laga liishay waxay markay intaas soo cadeeyeen waxay dhaheen reerkan meel aad u socotaan ma laha haddii inaan sheegin qofka dambiilaha ah ee falkan geystay meel aad aadaysaan ma laha xabsigaad ku jiraysaan dhowr maalin waxay ku jireen xabsiga marka xoogaa yar laga maqnaado saacada laga maqnaadaba waa loo soo noqdaa kadibna xabad baa loo wareystaa afartooda waraysi markii nafta kow looga siiyey dhowr maalin joogeen ee lagu xareeyay xabsi aan meel lagu fadhiisto iyo wax la cunay iyo waxba toona aan lahayn oo aad loo kadeedo loo cabeydiyey bay gabadh yareed afka iska jabsatay waxay tiri aabahay anigaa dilay askartii iyaday soo bixiyeen si gooniya loo wareystay meel ka duwan meesha ay saddexdooda kale ku xidhnaayeen waxaa lagu yiri sideed ku dishay aabaha maxaadse ku dishay waxay tiri aabahay waxaan ku dilay wuxuu noo diidi jiray TV-ga inaan daawano subxaanallah TV-ga inaan daawano wuu noo diidi jiray taleefan inaan qaadano wuu noo diidi jiray banaanka inaan u baxno oon asxaab raacno ama banaanka aadnana wuu noo diidi jiray cadaadiska faraha badan iyo ciilka markuu nabaday waxaan go'aansaday inaan dilo waxaanan ku dilay buskoolad uu isagu iska lahaa oo u sharciyeysan oo guriga u taala markaan buskoolada ku dhuftay kadibna buskoolada waxaan geliyay talaagada qaybta kore ee barafka askartii waxay aadeen markii hore baadhayeen askartu wax cadayna ma aysan helin hubkii wax lagu dilay ma helin qofkii dilay iyo cadayn uu ka tagay toona ma aysan helin waxay dib ugu noqdeen gurigii waxayna baaritaan labaad ku sameeyeen gurigii fridge-kiiba waxay ka soo saareen buskooladii ay gabadh wax ku dishay buskooladii bay soo qaadeen waxaa lagu xukumay xabsi gabadhii arrintiina askartii waxay dhaheen marnaba ma dhici karta gabadhi inay aabaheed ku disho TV baa la ii diiday iyo telefoon baa la ii diiday ee waxay ku dishay waa wax intaa ka weyn laakiin waayuhu way ku filan yihiin xaqiiqada inay soo saaraan intaa markii ay dhaheen gabadhiina sidaa la yeelay reerkii kale waa la iska soo daayay gabadhii baa gooni loo xidhay nin ay daris ahaayeen baa wuxuu cadeeyay gabadhan inay wada socon jireen nin ay isjeclaayeen gabadhan waxay soo adeegsatay ninkii ay isjeclaayeen oo la soo heshiisay waxay ku tiri aabahay control buu nafta kawnooga siiyey marka waxaan doonayaa in aad aabahay disho anaana kuu fududaynaya buskoolada aabaheed bay diyaarisay waxay ku tiri aabahay fajriga markuu ka yimaado qolkaasuu kaligii seexdaa markii dilku uu dhacayay saaxiibkeed baa banaanka u taagnaa aabaheed markuu seexdo wax yar ay istirida wuu gam'ay 12 daqiiqo kadib albaabkay ka furtay buskoolada u dhiibtay wuu ku dhuftay markiiba horey buu u cararay isagu iyada kaligeed baa soo hadhay albaabkay xidhay nalkay shiday waxay ka mid ahayd marka film baa meesha lagu jilayaa waxay ka mid ahayd dadkii u horeeyay ee aabaheed marka nalka la shiday reerku soo yaacay qofkii u horeeyay meesha yimid ba iyadu ahayd xaylababa aysan jiifin ba iyadu albaabkii ay ninka ka furtay bay ka xidhay markuu baxay hubkiina waxay gelisay fridge-ga intaas u dhacayeen waa inta reerku soo kacayeen kadib markii intaa la ogaaday askartu waxay ku dhaheen dambigan qofka kula galay sheeg waxay diiday dambiga qofka la galay inay sheegto maadaama ninkan ay aad u jeclayd ay og tahayna maadaama naf dishay iyadoon jirin wax cudurdaara waliba ay aabaheed dishay marnaba inaysan noolaanaynin waxay ka dhiidhiday inay sheegto ninkay jeclayd iyadoo og in labadoodaba qisaas lagu samayn doono oo la dili doono waxay ka qaadatay dambigiisii oo istiri intii labadiinaba la idin dili lahaa adiga kaligaa un ha lagu dilo askartu waxay ku xukuntay dil toogasho ah sidii baana lagu toogtay gabadh yareed gabadh yarna ma aha tani waa dambi gacan ku dhigla weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ugu talagalay bay joogtaa baan filayaa hadeere في جريمة هزت أركان المجتمع الأنباري أخيرا وصلت قيادة شرطة الأنبار إلى الجاني الحقيقي بمقتل رجل داخل منزله في منطقة عامرية الصمود جنوب شرقي الأنبار. الجاني هي ابنة المجنى عليه عبد الجبار مهدي بعد أن حامت الشبهات حول العائلة التي اختارت التخلص من والدها بطلقتين، الأولى في منطقة الرأس والأخرى في صدره، وإخفاء أداة الجريمة في مجمدة المنزل. في لحظة الكشف على محل الحادث في ذلك اليوم حامت الشبهة بعائلة المجنى عليه المتكونة من
زوجاته البالغ عددهم 2، وكذلك بناته وهي المدعوة طيبة، وكذلك ولده الآخر بعمر 16 سنة. أجري التحقيق مع المتهمات المذكورات زوجاته وكذلك بنته المدعوة طيبة، وقد حامت الأدلة وكذلك الشبهات على المدعوة طيبة التي هي ابنة المجنى عليه، تولد 2001، طالبة في الصف الرابع إعدادي في إعدادية عامرية الصمود. وبعد مواجهة الفتاة بالأدلة الجرمية انهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة، وأجري كشف الدلالة لمكان الحادث أمام قاضي التحقيق دون الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي دفعتها لقتل والدها بهذه الطريقة. كانت تدعي بأن سبب هذه القضية أو ارتكابها لهذه الجريمة بحجة أن والدها يضغط عليهم، عدم استخدام الهاتف، عدم استخدام جهاز التلفاز، عدم الخروج في بأوقات بما ترتئي المدعوة المتهمة طيبة، وكان هذه أسباب لا مبرر لها بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. تباينت دوافع هذه الجريمة التي هزت الشارع الأنباري، فيما اختارت الجانية أن تبقي تلك الأسباب من ضمن الأسرار التي تحتفظ بها، وقد تكون الأيام القادمة كفيلة بكشف الدوافع الحقيقية لقتل والدها الستيني داخل منزل العائلة. من الأنبار، سعد الحاج، بلاد الفضائية. halkan haddaan isla soo gaarnay ood sheekadan dhammaysatay waan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalkan haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto ood uga mid noqoto dad aad ku jecel. Subscribe taabo, like dheh oo la wadaag asxaabtaada si muuqaalkani dad badan u gaadho. Wayna muuqaalka kan xiga insha Allah nabad iyo caafimaad baan idinka tagay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.